kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan idinka diyaarnay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi Tagwa Jaale Engineer Aadan Muuse Cilmi Aadan Shiine iyo maamulkiisa muddadii yareeday uu joogay degmadaasi Tagwa Jaale uu ka fuliyay isla magaaladaasi isagoo wax qabad la taaban kara ka fuliyay guud ahaanba degmadaasi Tagwa Jaale iyo nawaaxigeeda كذا أقرد أنت يا جواك أسير جيجي أدخل مركوب ومن نفتقد كي يجركوا بحيره وحقايق شيء قبل ما تتعي وقرنيا أقبل ما كذا أقرد أنت يا جواك أسير جيجي أدخل مركوب ومن نفتقد كي يجركوا بحيره وحقايق شيء قبل ما بتهاي وقرنيا كيجا سوماليلاند جيستا أفريقيا با نبضنا دوغمية دوري لغو نستو قاتا جايه
gubayno maanta khamriga waad aragtaan maanta markii ugu horeysay maaha ee degmadan Wajaale lagu gubo khamri tirada leeg ama faraha leeg maanta maalintii ku xigtay waa kii barasaabku lahaa waa 3 foosto maanta haddaba waa 4 foosto oo wax yar ka dhimayay malaha litro yar baa ka dhiman 4 foosto 720 ay noqotay waa adiga arkood waa tu khamriya waa tug وإذا كارك دينا تكارك وتوك خمرية نوع والبنا وصدقين وعاكو شركي توانو كسوغرين وعاكو شركي كلا بالكا وعاوي يعني وعلي هاي ددوينا انت وناك جعل inay sida ay noogala shaqeynayeen aad markaba noogala shaqeeyeen ay noogala shaqeeyaan ka bacdi khamrigan dadka saaneen maanta halkan ku gubayno waxaanu waxa lagu xukumay 8 eedaysane ayaa lagu soo kala qabtay waana aragtaa baaxadda uu leeyahay khamrigaasi bishuna waa bil barakaysan ee Ramadaan marka waxaan halkan uga digaynaa dadka ka shaqeeya mukhaadaraadka inay ka waantoobaan oo waliba waxaan aad ugu mahadnaqnaa ciidanka booliiska degmada Wajaale inta halkan taagan waxaynu u taaganay waxa weeyaan qayb kamid ah inaanu fulino qayb kamid ah xukunkii maxkamadda taana aad waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka degmada ciidanka booliiska oo horkacaya taliyahoogu iyo laamaha kale dawladda markaa nagala soo qayb galay inaanu xaqiijinay inuu fulay xukunkii maxkamaddu maanta barta waxaan u joogaa inaanu khamrigan oo xadidkiisu leeyahay 720 litir oo u dhigma 3 foosto iyo badh tug ortoo mid subxaanallah inaanu waxa inta leeyahay anu dhulkii baa nu baqday moogta oo si ruuxaanti dambiga malaha kaaga salaam markaad bixisa dhulka lagu suubayo ciidanka booliska hadday tahay maxkamadda degmada Wajaale xiraalinta xogayaha gudoomiye ku-xigeenka dhammaan hay'adaha kala duwan halka jooga aad iyo aad ayaan idigu mahadcelinayaa sida isbedel ku horeeyay ka sariimada aad ka aragtaan oo inta sano ka sheegaynaa dumarkii sariimadan meeshii xeradhiibta ayadaan wax la cuni jirnay oo ayadaan boobi jirtay oo ma sha Allah baan ahay maanta alxamdulillah waxaan loo sameeyay khayriye khatar aan loo sameeyo oo kawana ku qalaf fiican sariimadana waa adiga arkood quruxdeeda adiga arkay marka waxaan ugu mahadinaynaa madaxdayada hambaliyaan u direena hambaliyaan u leenahay si degdeg ah insha Allah inaan uga soo xirino dibadda dayadii way daroortay oo way dadaalaysaa haliyadii way hagaagsantahay marka hore dawladda ma afantahay garoonkii been oo dhistay sariimadii been oo dhistay wadooyinkii been dhistay way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan doonaynaa inaan u baahan oo naga dhigay magaalada Wajaale idan la cabdo dawladda sharafta waxaan ka codsan oo tinii diyaarsiyo ma qabay haweeneyda wala noo sibireeyay waxa loo kor loogu qaaday hangarkii dad oranaya waxaan ku riwaalo noo agaajiyo suuliyaha noo qoro warad istambar wax kasta oo noo maray waxaan ballan idinku qaadanaa insha Allah bidnillah kareem in wax lagu farxo degmada laga fulin doono 24 saacadood aan u shaqeyn doono ummadayada iyo dalkayga iyo diintayada xiriirnay iskuulada oo saddexe iyo saraba maanta imtixaankoodii la soo xiriyay taasoo aan rajo fiican iyo diido wanaagsan aan ka dareeminay in insha Allah bidnillah kareem ay la kulmi doonaan waxaan kaloo maanta degmada aan mas'uul ka ahay booqanayna dhowr meelood waxaan ku darnay dhakhtarka guud isbitaalka degmada Wajaale oo isaguna hawshiisa si fiican uga socoto waan soo marnay dhakhtarkii degmadu ay lahayd oo aan imika aan fadhino kolley dhakhtarku hawlo badan buu qabtaa bulshada ku nool Wajaale adeegna waa ka dhiman yahay adeegna uu bixiyaa sida agaasimu uu sheegayo ayaa waajiba waxa kaloo anaga nagu waajiba ka maamulahan inaan guddiga horumarinta isbitaalka aan sameeyno ayaa waajiba si ay guddidaasi marxaan magacaygu yahay Cabdi Mustafa kamarad ganacsiyaasha magaalada Wajaale waxaan soo dhaweynaa maamulka cusub ee loo soo magacaabay
taasoo aan aad ugu faraxsanahay isku shaandhaynta ballaaran ee lagu sameeyey degmada Togwa Jaale run ahaantii maamulkii hore wax fara badan ka qabtay magaalada imika aatana waxaan soo dhaweynaynaa maamulka cusub ee loo soo magacaabay magaalada Togwa Jaale gaar ahaan gudoomiyaha injineer Shiine iyo xogayaha cusub lama waxaan rajeynayaa inay wax fara badan ka qaban doonaan magaalada Togwa Jaale maanta waxaan ka hadlaynaa haddaan Togwa Jaale nahay maamulka cusub iyo maamulka la bedelayo horta maamulka la bedelayo على كرانكود أنت ده وحي قبل كريم ويقبته خبص هذا ورطة عيد ما ويكون برانته ده كده عايز يشيله ورطة ده كم يتبابنا الدليل يشيله خبص هذا كرسي كان عايز يسكن المعمول كان عصب وحنوش شيء إنه ورطة ورسول دويننا قام فرن يجكله يلا برسول دويننا ومعمول داير وحوي المعمول أقول waxaanu maamulkan cusub u sheegaynaa arqabada badan ayaa hor yaala maadaama degmadan Togwa Jaale ay tahay magaalo ganacsi dadku ay ka ganacsadaan oo intaas oo qoomiyadood isku yimaadaan waxa weeyaan Togobaan waxa weeyaan wax tar aad u fara badan bay u baahan tahay dadkan magaalada joogana wax in wax loo qabto iyo wax qabad bay u baahan yihiin muxuu ahaayay haday noqoto biyaha haday noqoto muxuu ahaayay arrimaha bulshada hadii ay noqoto ma garanaysaa dhakhtarka oo muxuu ahaa la furay maanta oo sabtiya oo shaqaynaya oo ma garanaysaa iyaguna ambalaasyo u baahan waayo dadkan reer Wajaale badankoodu waxa ay ma garanaysaa qofka xanuunsada ama baabuur la dhaco ama ma garanaysaa qofka umulaya inta la sii wado ayaa ma garanaysaa ayaba de wax ku sii dhici jiray marka waxaanu aad ugu boorinaynaa maamulkan cusub ee imanaya inay yani waxyaalo badan qabtaan magaaladana waxay u baahan tahay in la keeno hay'ado ma aha uun ma garanaysaa in muxuu ahaayay cashuuraha iyo intan lagu eekaado maaha magaalada maamulkeedu waxay ka dhagalaadahay oo ka indhalaadahay in ay ma garanaysaa NGO-yada hay'adaha caalamiga in lagu soo xidho way u baahan tahay wax hay'ado caalami ma joogto wax NGO ya malaha waxa weeyaan marka bulshadooda aad bay u badan tahay marka insha Allah bismillaah ta'ala maamulkan cusub waxaan u sheegaynaa oo ku boorinaynaa oo ka codsanaynaa marka ay xilka la wareegaan in ay arrimahaas oo dhan ay ma garanaysaa wax ka qabtaan insha Allah raxiim aniga oo kamid ah dadweynaha ku nool degmada Togwa Jaale waxaan si aad iyo aad u soo dhaweynayaa maamulka cusub ee la soo magacaabay iyo dib badan haystay degmada Togwa Jaale dhigno wadada kiiloomitirkeeda lagu qiyaasay 5 kiiloomitir wadadan oo noqonaysa wado soo kordhin doonta bilic degmada Togwa Jaale magaalooyinka waxa lagu qiimeeyaa qaabka bilicdooda ay u samaysan tahay sida ay u dadaaleen ganacsatadan hawsha iska xil saaray oo aan aad ugu mahadnaqayo waxaan jecelahay ganacsatada kale ee reer Togwa Jaale ee sidan oo kale sakadoodii ay yihiin inay iyaguna kaga daydaan oo ay sida qaabka ay u dhigeen oo kale ay u dhigaan tani waxay ka caawin doontaa dadka sidii uu sheegay ninkii ganacsadaha ahaa boorkii wax ka tari doontaa waxay wax ka tari doontaa socodkii gaadiidkii wax ka tari doontaa waxay wax weyn ka tari doontaa bilicda magaalada aad iyo aad waxaan mar labaad ganacsatada ugu ammaanayaa fikirka wanaagsan ee ay ku soo kordhiyeen degmada Togwa Jaale ganacsatada kale ee reer Togwa Jaalena sidaas leeg ayaan ugu baaqayaa golaha deegaankana waxa weeyaan waxaanu ka midaysanahay ama ka wada soconaa kor u qaadida bilicda magaalada iyo nadaafadda waanu ku taageeraynaa wax kasta oo ay arrinkaasi nogala yimaadaan mar labaadka waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxa la yiri daawuska baalka la waa xayawaanada aad ugu quruxda badan adduunka marka la tilmaamayo laakiin wuxuu leeyahay sidoo u taxaashinayo nabar yar buu leeyahay nabarku buu eega dabadna morally ku xumaada Togwa Jaale waxay leedahay boogta daawusta kale haddaynu boogta iska daweyno waxa weeyaan quruxdeenu way dhamaystirmaysaa haddaynu iska daweyn weynana weligeedba boogtaas wayna daba soconaysaa maxay tahay boogtaas waa wadada 2 kiiloomitir ee magaalada dhexdeeda marta sidii horta dadweynaha reer Togwa Jaale ay soo dhaweeyeen ee boorarka ugu qoreen inaan ahay gudoomiyihii horseedayay inay Togwa Jaale isbedel weyn ku dhaco tii ballan baan hore ugu qaaday imkana ugu qaaday
horumarka wajaale cid allaali cid aan uga habranaya ama uga daba fadhiisanaya ma jirto wax kasta iyo cid kasta oo soo dhaweynaysa horumarkana waan soo dhaweynaya gacmo furan ku soo dhaweyn waan leeyahay cid kasta oo dib u dhac ku keenaysa degmadana annagoo iska kaashanayna ilaa min heer gobol ilaa madaxda kale qaranka gacan ayaan iskaga qaban waxaan leeyahay maanta waddadan aad arkaysa waa halbowlaha tog wajaale waa horumarkii horta alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta ganacsatadu ay iga caawiyeen aan kuna bilaabayo idinkana waxaan iga rajaynayaa inaan biska aynoo qabanno oo intan iyo in ka badanba aynu qabanno waxa iga ballana haddii ay hore u dhici jirtay waddada in laynagu xanto waddada 2 kilomitira inaan dib laynoogu xaman doono waxaynu maanta dhagax dhiganaa waddo 55 mitir ayaynu maanta dhagax dhiganaa oo halbowlihii degmada ah waxaa waajib inagu ah oo annaga waajib inagu ah haddaanu maamulkii nahay inaanu ka shaqayno horumarka degmada tii oo mar kaste muxuu ahaa nagu dul joogo ama nagu ilaalinayo barsaabka gobolka degmada xuseen maxamed cabdi isagoo degmooyinkana saa ugu dhiirigelinaya inay horumarka ka shaqeeyaan waa runtii waxay noo harsan ganacsatada halkan ka hadlayay wuxuu sheegayay in la iskaashado oo iskaashi lagaga baxo hawl kastoo jirta iminka waxaa noo harsan inaan 2 kilomitir ee iyaduna wadnaha magaalada la dhagax dhigi doono maalin dhow maamulka degmada iyo barasaabka gobolka isagoo horkacaya waddada maanta aynu bilaabanaa waxay tusaale u tahay sekadaha kale ayay tusaale u tahay ganacsatada inay iyaguna ku daydaan oo sidaa ay labadaas sakadood ay isaga soo horjeedaaba ay isaga gureen lacagta inay kuwa kalena ay isaga guri doonaan insha Allah taala balciidu uu leeyahay 19 mitir oo wadada halbowlaha magaalada ah waa waddo maanta magaranaysa ay u joogno bilicdeedii iyo qurxinteedii si looga shaqeyn lahaa wadada waxa magaranaysa maalgelinteeda leh oo iska kaashaday ganacsatada magaalada gaar ahaan bakhaarada ku soo jeeda wadada la dhisayo iyo dawladda hoose ayaa iska kaashaday waa arrin horumarkeeda leh wanaageeda leh quruxdeeda leh waxaana kow ka tahay sidii bilicda magaalada loo hagaajin lahaa waddadaasi waa waddo aad iyo aad u qiimo badan waa waddo ganacsiga halkan aynu taaganahay waxa weeyaan magaalada wajaale wadnaha magaalada waddada marta oo ku soo jeeda ay ku soo jeedaan bakhaaro koonayaasha waddada oo bilicdeeda magaaladu way kortay wajaale way weynaatay wajaale magaalo yar bay ahaan jirtay laakiin caasimad bay noqotay imika markay magaalada korto inay iska korto maayo waa inay bilicdeeduna la korto iyo imkaaniyaadka ay magaaladu xaq u leedahay hadday tahay waddooyinka hadday tahay iskuullada hadday tahay maxkamad wixii laga rabay magaalo weyn wajaale in laga helaa bay mudan tahay wajaale xuduud bay ku taallaa waa furdada ugu hantida badan ka soo baxdo dalka marka berbero loo eego ama airportka in Hargeysa way u dhigantaa baan leeyahay hadaanay ka badnayn dakhliga ka soo baxa waa ganacsato xora waxaan leeyahay waxaynu maanta dhagax dhigaynaa oo ay iska kaashadeen dawladda hoose ee magaalada Tog Wajaale iyo ganacsatada ku soo jeeda waddadii horeysay waxaan rajaynayaa ganacsatada kale ee magaalada waddooyinka kale ee mara waxa la oran jiray Wajaale ama siiga ku qaaday ama simbir raxatay labadiiba waa laga badbaadiyay siigadii marka marmar la dhigo halkan ka kici mayso abalama kade garode ayagu waa geesihi agaygiya dadku markuu gomanaan tageedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya abalama kade garode ayagu waa geesihi agaygiya dadku markuu gomanaan tageedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya Nabad lagu
dhaqanku una hiyo odaygu urti iyo gaaraadiyo sultaan gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo gola iyo arda garta lagu naqa umad gacaanaho dhaqanku una hiyo odaygu urti iyo gaaraadiyo sultaan gabka cidi gashiya gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo gola iyo arda garta lagu naqa umad gacaanaho galadiyo xornimo gumariyo ka jecel gooyiyo adduun ligaha sibiyo garwaa ka jira gaangaambiyaha guushan heliya galadiyo xornimo gumariyo ka jecel gooyiyo adduun ligaha sibiyo garwaa ka jira هذا عبد الله وربعين تمام حبنان